ilmahaaga 20 daqiiqo inaad la sheekaysato maalin walba bal isku day 20 daqiiqo kuma jirto baa la min غير توجيه ولا نص في waxbarashada kala hadlin homework kala hadlin 10 kala hadlin just kaliya sheeka ka dhig sheekaysta 20 daqiiqo waqtigaaga dhan 24 hour meel 20 ka siin weyd طيب number 2 waxa kamida التعبير waxaad u sheegtaa ilmahaaga inaad jeceshahay maalintii u fiirso waxa laga yaabaa la yaabto 5 jeer ilaa 10 jeer waxaad ku tiraahdaa waa ku jeclaa jumcadii ku horeysay waxaan joogay Toronto saajidka Khalid marka waxaan ku yiri bal tatbiiq ku sameeyay practic arintan habeenkii muxaadaro aan ka soo jeediyay aaba ayaa intaan fadhiyo muxaadaradu socotay wallahi weegii hore dhacday qisadaas intii la fadhiyay baa waxaan ku yiri bal hadda waxaad ku dhahdaan waan ku jecelahay ilmihiin u sheega hadda intaad fadhidaa aaba wuxuu u qoray gabadhiisii aabo waan ku jecelahay waana ku duceeyaa isla second daqiiqadii waxay u soo jawaabtay aabo waan ku jecelahay waqti walbana waan ku duceeyaa markaan muxaadara ka baxay buu yimid wuxuu tusay message kale oo uu u diray 25 maalmood ka hor oo uu ku yiri aabo isoo wac kelimadaas u adeegsan aabo isoo wac 25 maalmood gabadhu dhalimeyn uu jawaab hal kelimo kuma dhig markaan iri hadda bal isku day yaa wuxuu ka bilaabay aabo waan ku jecelahay waxay tiri waan ku jecelahay aniguna isla saacadii marka macnay sameynaysaa goorma kugu dambaysood ku tiraahdo waxa la yiri niman bawaadhood laga qaaday interview waxa la yiri kulligeen waxa la idin weydiinay hal su'aal oo isku wada mid ah goorma idin ku dambaysood xaaskiina ku dhahdeen waan ku jecelahay marka mid wuxuu yiri maanta midna shalay midna daraad mid weekii hore mid sanadkii hore aan markuu yiri waa ku jecelahay waxa la yiri hadda bal message kan u wada dira kulligeen message ka wuxuu ahaa waa loo dhiibay waad ku tiraahdaa qof walba xaaskaaga waan ku jecelahay يعني سيدا عين نوح وخلطينا بان ربعنا قطصو إننا واحد بدن فجودا بانوس أصلا إننا كان إننا كلفوجان هذا الرير تاين إننا كلفوجان تكان هذا أوبا تاين إننا كلفوجان توارد كان مسج كيبه ولا درين بركاسوني ولا بيروا واكو جعله تي أو الرئيسي أو سوج مركب حالة جوابه إذنكو عقرنينه نقول بو بسوج سمايا هذا آخر جواب تنيك على السوق قريت تذكر وين مقليا قبل دو الرئيسي وحي سوق قرتي miyaad soo waalanaysaa maanta tii ku xigtayna waxay qortay ma hooyadaaba inoo soo socota tii saddexaad waxay tiri ma waxoogaa lacag baad iga rabtaa jawaabo noocaas ah kulligood soo wada qoray 10 jawaabood oo kala duwan bay soo qoreen mid kale waxay tiri oo wacajab badnayd haddaad ii sheegin message kan cidaad u dirtay guriga maanta imaan maysid يعني يدكم مودي وان كجعله لكن تو كلا سورغل انو ku yiraahdo waan ku jeclahay Sooma marka waxa soo baxay natiij bal rabo marka maxaa ka yimid waxa ka yimid inuu san midkoodna adeegsan been inay ahayd eragay lahayn shalay baan ku yiri waan ku jeclahay way lama yaabteen Sooma midna kuma oran xaaskiisa waan ku jeclahay marka caruurteena aan ku dhahno waan ku jeclahay 5 jeer ilaa 10 jeer bal aasaarkii reedka ka yimaado tijaabi adigu maanta insha Allah caawada tijaabi waxa inta ka duwan 5 jeer ilaa 10 jeer amaan ilmaha yarka ah waxaad ku amaantaa ficil uu sameeyay homework ka shaqeeyay 10 uu soo bartay wuxuu sameeyay ku amaan ama waxaad ku amaantaa ashakl al-khariji muuqaalka ka muuqda sidoo uu labisan yahay soo timaha u soo jartay sidoo ilmuhu wiilkaaga sidoo ku amaan amaanta oo amaan waxa laga yaabaa tiraado ma istusba maxaa loo amaanaya waxyaaba cajabta badan tijaabinay adiga weyn hadii lagu amaano wad kala fadfadaysaa kulligan amaanta waan jecelahay xaqiiqo way arintaas ruux aan jecelayn amaanta ma jiro marka ilmaha yarka maxaa u malay taasiirka ku sameynayso طيب waxa kamida waxyaabaha loo rabna inaan ku toosino nasaaixda 2 jeer aaba waliba ama hooyo waliba ilmahooda 2 jeer asbuuci guriga bal kala bax oo nishaad ka baxsan guriga la samee wuxuu rabaa noqo ilaahu ma socod soo sameeysan kubadda la soo ciyaar caruurtiina kubadda magaaladeena meelaha caruurta lagu ciyaarsan raac waalidkii hooyada raac la soo arag طيب waxa kamida
laba jeer asbuucii reerku ha isla cuntay carruurta la fadhiiso cuntadu way ka duwan tahay midda hadda guryaha laga sameeyo laga yaabo wiilku inuu mar yimaado cunteeyo gabadha timaado waxeeda iska soo ridato ma waxa laga rabaa hal habeen oo la balansan yahay reerka dhan ay dhinac ka soo wada fadhiisanayaan xeerada afarta dhinac laga fadhiisto soo ma xusuusataan waagii hore sidii loo wadaagi jiray cuntada dhinacyada laga fadhiisan jiray طيب la fadhiiso carruurtaada meel degan adigoo la sheekaysanaya